qabsaday heesta waxay leeyihiin Somaliland baa lagu afuufayaa maxaa looga jeedaa bal dadka aad u qanci iminka boqolkiiba 2 غير انت لا صوتي كاميرا دوري نيو هورتا هيستاسي waxaan soo saari lahaa waqti hore laakiin way qornadana xilligan soo saaro sax jijiga birigan joogan reena soo saaro sax laakiin wala sugaysa maalinteeda because of teedii wada maanta noqotay because of wax kasta waxa la yiri marka la soo saarayo waqtigeeda iyo situationkeeda ayaa la sugaa aad iyo aad waan aragnay jacayl baa ku qabanaya heesta xilligii jacaylku hay ma soo qaadis sidii xilli uuna jacaylku haynin baad soo qaadaysa aad iyo aad marka ma sha Allah hadda dadku qolaba dhinac u qaaday sax way siyaasadeen asxaabtoodu waxay leeyihiin macaan markaad laga tagtay wadna soo hurgufaysaa kale aniga heestan nimcaan oo soo imka noo sheegtay waa hees mar hore la sameeyay Soomaa mar hore la sameeyay heestan jijiga markaan joogan rabeen soo saaro way suurta gal weeyday okay agis hadda dad badan baa soo qabsaday heesta waxay leeyihiin Somaliland baa lagu afuufayaa dad baa maaragtay xitaa aniga la su'aalo la soo weydiiyay maadaama aan in badan wada joognay intuu dambeysayimka waxa la igu war heestan niyahow maxaa looga jeedaa bal dadka aad u qanci iminka boqolkiiba 200 dhageystado niyo horta heestan dhinac waxa uu ula kacay adu waa xagga siyaasadda la talax tagay sax laakiin niyo heestan waa dawo kan socodkay dawo tahay facaylada dadka kala maqan okay iska bulada inta soo daran tahay iska dulqaatan leeniyo wallahi billahi ma sha Allah amiin hees aad macaan weeyaan dad badan oo asxaabteeda kamid ah oo soo wada diray aniga u diraa la soo diray hadana Snapchat ahaan marka miraheeda aad iyo aad u fiican yahay macno aad iyo aad laakiin Soomaalidu waxa noqotay wada xasrad ereyga tigada meel kale loo kacaya ya Soomaali waa markiya la yiri meeshii loo jeediyay aad iyo aad iska qaladku iska diray dulqaadkeeda aan leenahay wixii jiditaanka iyo inta arabna ka dhaqaaqo like adduunka sidiisaba marka dhimatid kafana ka raacaysa so intaas wanaaga ayaa la iska badiyaa dadka waxay ku hadlayaan iska hadlaa nacamku iska badiyay because waxa la yiri more aad horumar gaadid more like cadawgaagu bataan weeyaan wallahi hadda waxaad arkaysaa sheekh caasidiyo ragii hadalka isku dabrideebad ayaa joogay sheekh caasidiyo jira fanaan caasidiyo saaxiib caasidiyo sheekh timis caasidiyo aniga warkane wallahi Instagram ka waraysta waa soo geliya weesha jabba yaale wallahi jabba yaale wallahi sheekhu marayka waxaad ugu imanaysaa soo jeedo dadku is xaasidiyo sheekh caasidiyo fanaan caasidiyo saaxiib caasidiyo doorta ma fanka aragnayo shaqooyinka kale wax saas laakiin nimankaasi aan diinta ugu daafayna saxaasidiya war arin ma ayaan dawladda no like xaasidnimada waxay ku timaadaa horumar qof kale sameeyay ay ku timaadaa imka aniga horumar baan gaaray adigii horumar maad gaaray marka challenge ayaa meesha imanaya qofkii saaxiibku kuma farxayo wuxuu haystay ee challenge uu isleeyahay qofkan dhaaf taasa keenaysa markaa marka taas qofka keenaysa inuu qof kale xaasido yani macna maniyo wasitay asxaabtaniyo baasha waxa leeyahay qabiileynina heesaha siyaasadeynina maniyo horta hadda waxa leeyahay la tugu jeeda kuudhe wala tu fara badan tahay kuudhe ma wada xuma ما شاء الله وجيردنا عناها أنا كويك تاجنبه صوناً نيجي فيصلي سوق عالك وعلى نكاس كوا جيردا ونسك عنينا كوده صح لكن سد وظائف ما صاحب وظائف ما يا وظائف ما أني تدخل موضح مو تدخل أكسن ويبديهين waxaan ku leeyahay cadawgaaga oo nolow aad iyo aad حوي صاحب القد ka sii bixi doona aad bani salaam bindha aad